fariinta maanta halkan ka diraya waxa weeye dhammaan dhalinyaradii shaqo qaran gabdhiyo wiilalba halkay doonaan ha joogaan waxaan ugu bushaareynayaa in imtixaanka shahaadiga ee bilaabmaya bisha maalinta sabtida in dhammaantood loo doortay inay noqdaan ilaaliyayaashii imtixaankaas waa ixtiraam weyn oo dawladdu siisay dhalinyarada iyo kalsooni waxaan farayaa dhammaantood inay ka qayb galaan si xilkasnimo leh waajibka la saaray ay u gutaan dhalinyarada gobolka Maroodijeex waxay iska xaadirin doonaan oo la xiriiri doonaan xafiiska imtixaanaadka qaranka dhammaan dhalinyarada ku sugan gobolada gabdhiyo wiilalba iyaguna waxay iska xaadirinayaan xarumaha wasaaradda waxbarashada ee gobolada ay joogaan waxaan farayaa in mas'uuliyadda la saaray ee qaran ay siday tahay uga soo baxaan inay si fiican u ilaaliyaan inay waayeel ka noqdaan taasaan farayaa dhammaantood taasaan ugu bushaaraynaya waxa kale oo aan dhalinyarada doonaya shaqo qaran in la socodsiiyo hawsha imtixaanku marka ay ka dhamaato kadib in ay kala xiriiraan xafiisyada gobolada ay joogaan shahaadooyinkoodii iyo aqoonsiyadoodii ID-goodii oo halka ku soo hagaajin doono halkaas inay dhammaantood halkaas ka doontaan waxa kale halka ka ogaan doonaan oo loogu dhajin doonaa liiska wasaaradaha iyo meelaha ka howlgali doonaan hay'adaha dawladda ka howlgali doonaan ayaa halka loogu dhajin doonaa sida hawla socdaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo inagoo nabad ah iyo wadan barwaaqo ah ilaahay idankii ilaahay naga aqbalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyarada shaqada qaranka soo tababarkii shaqada qaranka soo dhameysatay xafiiska imtixaanaadku waxa uu si hambalyo iyo farxad leh ugu qaabili doonaa goobaha imtixaanada haddii xukuumadda Maroodijeex waxay imanayaan sidoo sheegay Maxamed xafiiska imtixaanaadka xarunta imtixaanaadka imanayaan arday gobolada joogta goboladeedu ay tagayaan madaxda waxbarashada goboladu way la socdaan meel kasta oo imtixaan lagu qaadayo imtixaan shahaadiga iyaga loo egmaday sanadkan anaguna waa hambalyeynaa dhalinyarada yar aqoon-yahana oo wadaniyad iyo hadii la ku roon yahay macluumaad badan soo qaatay oo fahmaya waxa horumarku ku jiro iyo waxa dib u dhac ku jiro kala fahmaya oo ujeedadii imtixaankan waxa looga goleeyay fahmaya alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku soo hambalyeynaa hawshan naga qayb galaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh